ميد قبر ku aasnaa muddo hal asbuuc ah ayaa la soo saaray kadib markii la ogaaday in uu khalad dhacay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ramadaan mubaarak dhammaan asxaabteena qaaliga ah. Dhacdadan waxay ka dhacday dalka Nigeria. Nin Masiixi ah ayaa lagu aasay qubuuro loogu talagalay dadka muslimiinta ah oo ku yaala gobolka dhaca waqooyiga Nigeria ee Kano. Sababta markii hore loogu aasay halkaas ayaa lagu sheegay in laba ruux oo aad isugu ekaa la isku khalday. Cabdullaahi Obinwa oo Muslim ah iyo Basil Njezi oo Masiixi ahaa ayaa la sheegay inay aad isugu ekaayeen isku marna ay geeriyoodeen taasoo keentay in Masiixigii lagu aaso qabuuraha muslimiinta. Aminu Adam oo ah imaamka guud ee bulshada ku dhaqan bartamaha gobolka Kano ayaa sheegay inuu isagu qaatay mas'uuliyadda jahwareerka dhacay. Dole ki ci gaba da sai dai su je su baki makari. waxaana loo sheegay in Cabdullaahi Obinwa uu meydkiisu ku jiray qaanada lambarka 22 qaybta meydadka lagu keydiyo. Markii aan anigu tagay inaan soo aqoonsadana, Basil Njezi ayaa ila ekaaday Cabdullaahi oo noolaa muddo 40 sano ah. labadooduba waxay ahaayeen niman jir ahaan iyo dhirir ahaanba la isku qaban karo, garna ma lahayn. Markii aan weydiiyey qaar ka mid ah shaqaalaha qaybta meydadka lagu keydiyo ee isbitaalka, waxay ii sheegeen in mararka qaarkood ay meydadka garka ka xiraan. Markaa waxaan isaga maleeyay inuu ahaa Cabdullaahi, ayuu yiri Aminu. Khaladka dhacay ayaa laga warhelay kadib markii qoyska ninkii Masiixiga ahaa ay tageen isbitaalka iyagoo qorsheynayay aaska wiilkooda. Kadibna waxay ogaadeen in uu meydkiisa maqan yahay. Markii ay xaqiijiyeen in lagu aasay qubuuraha muslimiinta, waxay u dacwoodeen maxkamad taasoo u ogolaatay inay soo baxsadaan meydka. Qoyska Masiixiga way heleen meydkiisa, balse waxaa ilaa hadda la la'yahay meydkii Cabdullaahi oo weli la raadinayo. Maamulka isbitaalku wuxuu wadaa baaritaan ayaa qormadan lagu soo gabagabeeyay. BBC-da ayaa qortay. Anigoo ah Xuseen Deeq ayaana idiin soo jeedinayay. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto siina share garayso. Ramadaan mubaarak.